munaasabadan maanta sharafta iyo qiimaha badan ujeedadeedu waxa ay tahay saddex qodob. qodobka koowaad baarlamaanka Soomaaliyeed aan la hadlaynaa fariin aan u diraynaa taladu maanta gacantiina ay ku jirtaa shacabku waa idin soo doortay adinka la idinka warsugayaa baarlamaanka waxaan leenahay codkiina maanta shacabka ugu hiliyo madaxweyne xasan hore loo soo tijaabiyay madaxweyne xasan hala doorto. fariinta labaad waxa ay tahay inaan halkaan ka muujino dareenkeena ummadda Soomaaliyeed u sheegno codkiina caalamkan tusnee cadeeyay cid rabtaan maanta waxaan rabnaa xasan si fiican ugu dhawaaqo codkiina caalamkan tusnee cadeeyay cid rabtaan maanta xasan aan rabnaa abwaan abshir nuur faarax bacadle adeerkay waa asaga ku dhawaaqay hadda ka hor kelmadii maanta ay taagan tahay adinka idin la hadlaya codkiina caalamkan tusnee cadeeyay cid rabtaan xasan marka aad iyo aad u mahadsantihiin intii munaasabadan soo qaban qaadisay oo aan qayb ka ahayn haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdisho degan fariinta maanta aan diraynaa waxa ay tahay doorashadii waxa ka dhiman 2 maalmood waxa aan taageersanahay si buuxan u taageersanahay soo dhaweynaynaa aaminsanahay maanta dalka in lagu aamini karo oday waaya araga oday waayeela oday wax badan u soo joogay oday xogogaal ah oday maanta daladan dalka lagu aamini karo oday dulqaad badan iyo samir intaba xasan waxaan leenahay waa mudan yahay maanta codkiina ugu hiliya annagu haddaan shacabka nahayna waa nin maanta cusubna maana hore loo tijaabiyay dalkan 4 sano madax ka ah hadday tahay dhismaha maamul goboleedyada hadday tahay doorashada dalka inta uu soo qabtay ma hal maamul goboleed 5 maamul goboleed ee dalku uu leeyahay madaxweyne xasan ah dhisay inta ka dhiman waxay ahayd maqaamkii gobolka Banaadir ayadana maanta waxaan leenahay fursad ha loo siiyo waa maalintu dhisi lahaay inta ka dhiman waa intaas waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa haa moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqonogoys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecatii u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimaalow Center moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macallin Bimaalow